bismillaahi raxmaani raxiim. daawadayaasha qiimaha iyo qayaa leh ee nagala xidhiidha dhalinta qaranka soomaaliyeed, barnaamijkan cusub ee aan rabno inaan caawa idiin soo dayno waxay ka mid tahay waa maxay dhalinta qaranka soomaaliyeed. dhalinta qaranka soomaaliyeed waa dhalinyarada soomaaliyeed oo ku kala nool adduun weynaha oo idil. dhalintani waxaa ka mamnuuca oo cadowgooda koowaad ah la dagaalanka qabyaalada ah, waana midowda dhalinyarada soomaaliyeed, kuwan oo loogu talagalay in ay hantaan dhulka soomaaliyeed marka golaha ammaanka uu la wareego, kana mid noqdaan xisbiyada faraha badan ee soomaaliya markaa isu soo sharaxayo. haddaba dhalinta qaranka soomaaliyeed waa wadaniyiin aqoon-yahaniin iskugu timid dar allah iyo soomaalinimo. shahaadadayadana waxa weeye ilaahay baa qalbiga daalacdo haddii wax khiyaano ah ay ka dambeeyaan dhalinta qaranka soomaaliyeed. ilaahay dhalinta maskaxdeeda ma mideynayo, isuma keenayo. ilaahay hala kala raacdeeya haddii aan khiyaano iyo wax ku jiraan. taasina waa micnaha. haddana waxaan ku bilaabeynaa hees maxamed suleymaan tubaaca oo aad nala dhegaysan doontaan, oo xilligii xorriyadda ah. dharaar baa haystan la yidhaahdaa. dhegaysi wacan oo habboon. haddana waxaan rabaa inaad aragtaan dhalinta qaranka soomaaliyeed halka ay ku midowday oo ah facebookani. hamogaanina haddii aad dhalinta qaranka soomaaliyeed ka mid noqonayso. dhalinta qaranka soomaaliyeed oo facebookani maanta ku midowday waxay isku weydaarsadaan fikradaha qadiyadeed ee wadaniyeed. waxaa ka mamnuuca dhammaan wax ku saamaasan qabyaalada. waa dhalinyaro dar alle iyo soomaalinimo iskugu timid. hamogaanin dhalinta qaranka soomaaliyeed hadduu ilaah yiraahdo. haddaba dhalinta qaranka soomaaliyeed waa dhalinyaro dhinac walba ka dhammaystiran oo lagu talagalay in iyagana ay marka ay qaramada midoobay amniga soomaaliya la wareegto ay ka mid noqdaan oy matalaan waaxdii ay matali jirtay SYL lagu yaqaanay oo kale. dhalintani waxaa la furay October 6 2011 waxaana la sameeyay qaraxii ardada soomaaliyeed. kadib waxaana ogaatay soomaalidu inay iyadu ugu dhib badan tahay, dhibka haystana ugu ballaaran yihiin. taas ayaana keentay inay mar walbaba ka fikiraan oo ay sameeyeen ururka dhalinta qaranka soomaaliyeed. ururka dhalinta qaranka soomaaliyeed duba waxaa ka mid ah dhalinyaro aada u firfircoon oo aad ka dareemi karto wadaniyadda iyo qadiyadda waxyaalaha ay soo dhejiyeen oo dhan. ururka dhalinta qaranka soomaaliyeed oo jiro muddo ka yar bil iyo 2 cisho ayaa haatan wuxuu buuxiyeyba meel walba oo soomaalida iskaga soo sheegtay. waana ereyga aan leenahay haddaan daacad nahay, dalka iyo dadka iyo diinta aan u nahay. ilaahay qalbigayaga wuu mideynayaan, haddii kalena waxaan noqonaynaa kuwo khiyaano wata. haddaan nahayna ilaahay wuuna kala raacdaynayaa. haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qaayaalkow waa dhalinta qaranka soomaaliyeed oo markale idinku baaqayso dhammaantiin meel kastoo joogtaan kasoo qayb gala. dhalinta qaranka soomaaliyeed waa qaranka dhabta ah ee soomaaliya matali doono hadduu ilaahay yiraahdo, iyo dowladda dhabta ahi. hamogaanina haddaba walaalayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow. waana haddana waxaa idinkaga tegaynaa oo ku dhammaystirnaa heesteena aadka u qiimo badnaa ee wadaniga maxamed suleymaan tubaac uu tiriyey.
waana tan heestii dharaar oo mar kale idin sii deyno iyo mahadsan idin markii laga baahnaa midowga dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka jooga ku soo biira dhalinta qaranka Soomaaliyeed waa dawladda dhabta ee Soomaaliya matali doonto kuwana way tagayaan shariifka iyo dawladda ku sheega ah iyo al-shabaab dhamaanteedba golaha ammaanka ayaana la wareegayo waxaana la soo keeni doonaa xisbiyaal iyaga lacag soo siiyeen kuwaasoo carruurta iyo haweenka rabaan inay doorto ugu ridaan annagana waxaan rabnaa inaan buuxino kaalintii ka hortagi sidii loogu hortagi lahaa oo ah in dhalinta qaranka Soomaaliyeed wadaniyiina la sameeyo marka dawladda dhabta ah Soomaaliya waxay ku soo aadan tahay 2012 ka dhamaadkeeda hadduu Ilaahay yiraahdo haddaba ha moogaanina dhamaantiinba khayraadka sharafta leh la soo xiriira dhalinta qaranka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh